إن لا تلقى طوان تلقى إن دولة للسجون وان سجني إن دولة للسجون وان سجني لبعتن كا إمك أنت يعني هدي بدك ليه رجع ساحر نهاية الحكومة دول وان سجني وحنا نو سجني إنه إلى لنا النظام كيدول النمذا يشريتان قرن مدين وما سمرين أيوه إنه يديارو تاعي أنت هذا بين بينوشيت أنت هذا بين بينوشيت والله ذا فديين رجع لك فديه وذ بين بكشيت waxaan u maleynayaa inay leedahay diiska ka celiya war dhul la isku basiyo yarad dhulkan ninka uu haysta in yarad la isku siiya dhul yarad la isku basiyo la isku basiyo dhul yarad dhul la isku basiyo campaign siyaasadeed la isku basiyo campaign dhul ma gala adeer dhul ma gala campaign yaradna ma galo taaka dawladuhu isku dilaan taako Somaliland way ka dhareegsantay 25 ka sano nin ay wax ku seegayin madaxweyne Siiraayaha inuu la hadlaynayo ummadana la hadlaynayo dhaho nin wax ku seegayin ma jirto waa la inoo bareeray dhulkana waa la qaybsanaya waxaan hadalkay soo gabagabaynayaa way naga go'an tahay wallahi hadii salaadiin iyo siyaasiyiin waxa xidhan uqaal baa la leeyahay hadii dhig ku daadanay hadii nafa ku go'ayaan hadii Somaliland ku burburaysa inaan aqbalin waxaanu faraynaa in xukuumadda leenahay la dhigi maayo sanaaduuq lagana codayn maayo diiwaangelina laga sameyn maayo goobaha mana dhacayso taasi dhici mayso waanu ka soo horjeedaan dhici mayso wallahi inaanay sacad musliin dhul habara leedahay inaanay diiwaangelin ka dhacay cashuuraanu bixinaynaa laga bilaabo maalinka maantaana inaanay jirin cashuur aanu bixinaynaa inaanay jirin haddii biduuni shuruud dhulka iyaga faraha looga qaadi waayo رجع حنا أبناء ونسيدي وايو بدون بالوايس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت إنه يسقون منا تي عن عذر يحماني كشرنا الله ينقبل تي وناجي يطلع ما يتوفق كشرنا الله ينقبل ذلك يدك يدين تبا أن وهو نكسر كتل يا الله ينقبل تنتو ذلك يدك بواحد كشرنا نبت قليدو أدلو إلى اليوم هذين بتقدر لإلالي وايو أي وحكق اللعدان وحي نسو مري ومديا وين كور هينا دباتدي نسو قال وين كور هينا شاركين وين أركينا وحك الصعدة دباتوين كالصعدة وين أركينا هذين لإلالي وايو تي بين نقول إساء دولكنا والله كلا يقانا درهر والبمير بينهاي كوابوري فير ما أنت وحكما قادي كرو منع قبصان كرو وقايقة إيو بارقة بربرة إيو حيبتونا ندتك تقوين نغاناه بيش السمارة والله انتي تقنتهي وين اوقنهي ان سيدا إمك إيبو قطة واحد مدائن بيلهان سمارة والله يكسعطو علادو تاسنا وحان فدناها يسو كرن ميسو أنا وحالي تاها ليناليو دولة تاها إلاليسو مدحدو هفليسو وحي دلقة يددكو أيكو كلام حيان حدين بودلكو بايو حد بالليل حد كهلا دمسترو هلا إلاليو سنادوق انتو تكلموا سوق هذا ميل لقيانا وحن بتاعي سكر الميسو تعال إلالي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجهرين لما أنبه dadweynaha isugu yimid madashatan aynu ku qabanayno shirka jaraa'id ee ka socda galbeedka waqooyiga hawdka ama oogada hargeysa madax dhaqameed iyo waayeel iyo waxgarad iyo siyaasiyiin iyo dhalinyaro iyo haween waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii qadiyadda maanta halkan aynu isugu nimid waa haddaynu qeexno waxay daaran tahay oo ay ku tacalluqdaa waxa weeye waa qarankan arrimihiisii ugu waaweynaa masiiriga ahaa waxa weeye waa dhowr qodob dhowrkaa qodob waxay kala yihiin kow dhulka xeebta waqooyiga hargeysa ee gobolka maroodijeex ee muddo dheer shacbigu uu yacni xuquuqdiisa ku la'aa
وأنا حد كيس يحرمدي سلجرا وياهين ويعنيه ما أنت أين أفردينه إلا فصحه ولا لقى هذا حيرات دواء قضب وأين متدير وسمريني وأين كعدون شعبي حتى وروق سميني وكعدون كشعبي وقلفتي حكومة تنكو الرئيسي شرفت الله شرف بابي دي حكومة داسية لا ليس waxa kacdo ka shacbi oo ka kacay oo tumihii ugu waaweynaa bay kamid ahayd cusuriyada yaani goobaha gobolka Baroodijeex inuu xeeb yeesho ha yeeshee taasi waa qodob oo waa qodobka dhulka qodobka labaad waa madax dhaqameedkii aanu nabadda u durinay iyo inamadii dirawali tahay baabuurta u waday markii kacdoonka shacabku ka dhacay waqooyiga goobta hadayta loo yaqaano raggii ku gurmaday madax dhaqameedka ay namadooda qoryaha ka soo guraayay ilaa maanta xabisan loo haysto shiftanimada lagu masabiday ayaa iyadana in ooda laga qaado ay tahay waa qodobka labaad waa qodobka saddexaad ceel garde waxba ku noqon maayo maanta u baxaya hadii alla ka dhigo gobolka Saaxib iyo magaalada madaxdiisa caasimadda Berbera inaha uu daaray shirkada shareed waa inaha soo waqti dareed wax badan baynu samirnay waxa xusid mudan qadiyadahan isbarkan taniyay ay xukuumadda madaxweyne Siiraayo qabsatay dalka cid qura ee la cunsuriyadaynayo cid la baabiinayo iyo cid la wiiqayaaba subeer awal mar dhaafsiisna badanaaba iyadoo la xusi karo inay reeraha kalena nala qabaan oo walaalaheen araba la soo aynu ognahay dhacdooyinkii meesha ka dhacay cid walba maanta sidaas ay dhaawac muujin u haysataa aynu u haysano Somaliland galbeed iyo bari midnaba ma bad qabto maanta maalintii madaxweyne Riyaale uu ku wareejinayay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo waxa ku wareejinaya buu dalmida iyo dadmida maanta waynu arkaynaa halkaynu marayno isaga sheekayn bayno run ahaantii waxa xusid mudan halka ka waxaynu ku cadaynaynaa haddaynu beesha Subeer wallahi khaasatan maanta reerka Sacad Muuse halkan fadhiya Sacad Muuse ma kaco hadduu kacona ma fadhiisto hadduu kacona way adkaanaysaa oo aad bay u adkaanaysaa inay fadhiistaan anigu ragga qaarkii waxaan yidhi bal horta aynu hordhac ka dhigno oo aynu bal message-keena gudbinno oo aynu si dawladda sidii nidaamadu ahaan jireen waar warbaahinta inaga daaya ayaynu ku tashanno oo aynu double for la hadalno oo waxaynu tabanayno aynu xalkeeda ka raadino xukuumaddii xukuumaddii waynu ugu bari furtay oo waa si asluubaysan baynu u dhamaysan lahayn oo waxaynu u dhamaysan lahayn xafiis to xafiis oo aynu for hor fadhiisanno halkaasay ka dhacday maalintii hore ee 800 kale ay isku yimaadeen maalintii aynu halkaa isugu nimid ergaa laynoogu yimid xukuumaddu laakiin se barlamaanka qaado labada qodob ahaa midna kamay soo bixine labadiiba waa inugu bari furtay wax alla waxay ka qabatayna ma jirto go'aankeenuna wuxuu noqonayaa insha Allah bidmillahi kariim inaan waxba inoo xidhnay wax alla waxay noo xidhnay gaaraysi wadana steexa baynu u marnay sidii aynu ugu qancin lahayn wadana steexa baynu ugu garnaqsanaani maanta halka kan waxaynu ka cadaynaa kow haddii aynu beesha tan nahay oo aan madaxoodii ugu sarreeyay ahay madaxii guuda Subeer wasdaanka guuda Subeer waxaynu cadaynaynaa dadka aynu xeebta wada degno ee beelahan walaalaha nahay Samaro iyo Ciise aynu abtiyaasha nahay ee aynu gacalka nahay inaanay wax dhibaato inaga dhaxayn inaanay wax uutun inaga dhaxaynin inaynu walaalo nahay inaynu uliya diirkeed nahay ayaan halkan ka cadaynaynaa waxa kale oo cadaynaynaa dadka ay yacni maanta beesha tan ka dhashay ee loo yaqaano waji ku macaashka ama danaha khaaska leh waxa mar walba ay xukuumadda sida qaalibka ah soo jireen u ahayd
ay ku soo sifowday oo ay ku caan baxday in shirka aynu qabanno inagoo danaheenna iyo rabitaanka deegaanadeenna iyo dadkeenna iyo qarankeenna ka hadlayna in lagaa daba hadashiiyo ku aan maqaamkaaga ahayn oo belibeliya oo waxa lagu soo shubtay waa ka afeef dhiganaynaayo kaasi inama khuseeyo dabadayo hadduu hadlana hadalkiisu waa waraabe dhanaarciyey looma baahne halkii inta yara calooshi shaqaystaha uu ka yahay laga soo siiyaha kula noqdo wuxuu inaga inoogu jawaabayo haddii uu laakiinse doonayo maanta talada reerku meel bay taallaa talada ummaddani meel bay taallaa guri bay taallaa gurigii salaadiinta subeena walba halkaa ku yaalla waa ninka wax isla hayow annaga iyaan t v-na lagu kaasoo kiraysane haad burhaanag golod lagu kaado waxaanu aad iyo aada uga xunnahay in maanta la wiiqayo nabadgelyadii oo taa aan ku leeyahay maanta ilaahay waa inaga xaaraantinimiyey dhiig islaam tacsi baynu u diraynaa taliyihii qaybta gobolka saaxil ee ku geeriyooday ee la dilay aad baa uga xunnahay qarankuu ka baxay qaranka ayuu ka baxay inagu inoo shaqaynayey dalkuu shaqaynayey waxase nasiib darraa halka kan wufuud baa laga dirayaa iyadoo madaxdii ummaddu joogto oo dhaqankii ummaddu jaranjar iyo brocesska la leeyahay xukuumaddu mar walba waxay ku gabanaysaa in yari gacansaar la leedahay kuwaasina maaha qaar ka turjumaya oo masiiriya oo aniga yacni aan u xil saartayna ma aha ummadduna ay u xil saaratayna ma aha waxaa weeye hadday ceel garda tahay iyo hadday xeeb tahay labadaba dhaqdhaqaaqa maanta go-aanka habarawal wuxuu yahay kow waa in si xorriyadoodii loo soo celiya madax dhaqameedka haddii lasoo dayi waayena subax noolba iyo gabal dhacaba cuqdad iyo arami ayay shacbigay ku beeraysaa qadiyadda taasi waxay dan u tahay xukuumadday dan u tahay waxay dan u tahay intay caga ku qaadatay dan u tahay in la soo daayo oo faraha laga qaadaa iyagay dan u tahay xukuumaddana nabaddu waa u dan riciyaddana waa u dan sharciga in la ilaaliyaa riciyaddana waa u dan xukuumaddana waa u dan haddaad sharcigii maanta aad laalaabteen oo aan sharcigii la ixtiraamayn oo qodob distooriya ku soo aroorayay gobolka maroodijeex xuduudihiisu inay noqdaan sida qaranka kaleba yahay haddii aad ixtiraami weydaan sharcigu wuxuu dhigayaa hadday qodob noqoto qodob waa ka distoorka ee 7% shacbigu u codeeyey wuxuu dhigayaa xuduudaha gobolada iyo degmooyinku waa 6 district ee halkan 1960kii oo loo bedelayo gobollo xuduudihii degmooyinkaasi lahaayeen maxaa ka oray meeshayada Kashmir ka dhigay maxaa Kashmir ka dhigay ee la isugu haysanaya waxa weeyaan ma noqonayso Kashmir ragna waa u maqan yahay waana xaajanaya rabbi leh waxa halka kan shirarkii horena nagala soo qayb galay siyaasigani weynaa rugcadaaga Cabdilaahi Gaaxnuug oo 1969kii laga doortay goobaha iyo dhulka waxa weeye oo ay tahay xaaladdu waa taasi inkiri mayno dareeraha kale waa idinku qoslayay haddii la yiraahdo dhulkiina maabkiisa keena ma material la isku haystaa dhulkii oo dhan baabad liqday maxaad maab inaga weydiinaysaan waxa weeye maabkiina idinka dawladda haysta balse waxa weeye shacbigani waxa ka go'an oo qodobada habarawal maanta ka go'an oo aanu fiiro gaar u leenahay oo aanu u soo jeednaa deegaan hadday tahay iyo dad hadday tahayba in dheer baanu u leenahay geed dheer iyo geed gaabanna waa u fuulaynaa waanay naga go'an tahay in dhulkaasi sharcigii la waafajiyaa oo qodoba qodobkaasi halkaasuu yaalla qodobkaa labaad in ragga la sii daayaana waa naga go'an tahay way naga go'an tahay intaa haddaan ka soo gudbo oo aan ku soo daadego nuxurka dulucda ujeeddada tani waxay daaran tahay horta waa inahaa waxase aynu insha allah bidmillaahi kariim shacbigeena ku wargelinaynaa oo aynu baaq culus u diraynaa gudayo dibadba shacbigii taladaynala lahaa taladayooda waa taa waa caddahay qoraxday ka caddahay
cidna ugu habran mayno wajigu macaash baa laga soo dabadiraya ugu habran mayno danaysta looga soo dabadiraya ugu habran mayno u joojin mayno waa shaqaysanaynaa waxay tala noqotiyo dani noqotana mar walba waa waafaqsanaanaynaa xukuumadduna haddii ay yacnihii maanta arrintaasi si degdega waxba uga qaban weydo karis xun iyana wax ku la waxaan ku soo ururinaya ku soo afmeeraya shacbigeenna oo aan ilaahay looga baryaya abaaraa jira colna waa layna gelinayaa col iyo abaar ilaahay bay isugu keen dari maayo alla isuguma keen daro raxmaadka khayri qaba allah inoo shubo talada sana allah inoo waafajiyo kacdoonka halkaa maanta ka bilaabmay xukuumadihii horeba aynu ka dhiidhihi jirnay qadiyadaheenna allah inoo adkeeyo shacbigeena gudiye dabeedba ha loo hoggaansamo talada odayaasha iyo waxgaradka iyo siyaasiyiinta iyo islaadiinta oo dee maanta anigu suldaankii madaxoodiiba aan ahay madaxa meel ka sarraysoo la taabtaa ma jirti taana waa in loo hoggaansamaa shirarku waa soconayaan dhaqdhaqaaqyadu waa soconayaan yacnihii maanta ul iyo diirkeed baynu nahay nin danaysta ahina inaguma matalo qadiyad deegaan qadiyad dhul qadiyad dad midnaba inaguma matalo halkaasuu ka soo bixi shaashadahaynu ka daawan doonaa kii inta yare shidaalkaa loogu soo shubay oo carabku go-an yahay carab laa baynu arki doonaa oo maalin walba inaga daba yimaado waxay hore u ahayd maalin karoonanu ka hadlaynayba waxaan idhi waa ninka dulaysanee baahane calooshiisa sitaa muxuu madax dhaqameed ka noqday waar muxuu ummadda u qaban ninka calooshiisuu talin waaye muxuu reeriigu talin waaraha calooshooda hoo taliyaa ninka inaga daba hadlaya ninka odhanaya odayaashii iyo waxgaradkii iyo sacad muuse iyo sugaana walba ninka odhanaya arrimaa kaga daba dhufanaya war golaha kaalay baynu leenahay golaha noogu kaalayo bal lagu qanci waxaad sido wax lagu soo faray ma shaqaynayaan kamana shaqaynaysa halkan erga hadday noo imanayso reerku madax buu leeyay maanta anaa hor fadhiya waxa weeye anaa hor fadhiya iyo raggii dhigayga ahaa iyo waxgaradkii iyo culimadii iyo odayaashii qofkii maanta wax doonaya inuu nagu kordhiyo loo kaalay wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah guud iyo gobonnimo iska ilaahay